Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Nature Channel. aad baan idin salaamay walaalayaal qaaliin meel kasta joogtaan soo dhawaada dadka cusub channelkayga subscribe like dhaca noogu siiya insha allahu tacaala. maanta waxaan idin wadaa qiso jacayl. qisadan jacaylka waxaa ku dhacday gabadh Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed aan idhaahdee. qisadan gabadh bay la soo wadaagtay walaasheen ah oo iyada qisadan ku dhacday insha allah tacaala. waxaanay doonaysaa in maaragtay lala taliyo oo wixii maaragtay shalaad ku dhaantiin insha allah aad usoo gudbin doontaan. aniguna wixii maaragtay aan dhihi karay waan dhahay insha allah idinka sugaysa insha allah. kilibka waxaan idinka soo duubay inaad idinkuna kuwaana qadatiin wixii talana walaasheen la soo wadaagtiin haddii ilaahay subxaana watacaala ka dhigo. talabaad walaalayga qaaliga gabadha walaasheena magaca u daaratay in maaragtay ana magaceeda ku xuso iyo magaalada iyo gobolka iyo wadanka qisada ay ku dhacday intaba maxay ka daartay in loo gaadiidaysa markaas insha allah tacaala qisada sidan ay ku bilaabmaysaa. asalaamu calaykum walaalo jacban ku salaamada asxaabtaadaba wacalaykum asalaam ballayna walaalon ka qaadnay. maxay heetoy waxay tiri inantu 2016 bishii saddexaad wiil baan isbaranay. wiilkaasoo si walaaltinimaan isku baranay. wiil kaloo asxaabta ah baan isagana isku baranay bay tiri. waxay tiri laba dal baan isku dal baan joognaa laakiin laba gobol baan kala joognaa. maxay heeto telephone call baan isku baranay face to face sida maarta laba qof oo caadi isku yaqaano isku arki manihin ilaa hadda xitaa. waxay tiri walaasheenan sidaa ay tahay wiilkii xiriirka walaaltinimaan isku baranay xiriirkeygii uu kasii batay sidii jacayl buu isku bedelay. muddo badan ayaan wada soconay 16 oo dhamaaday 17 18 dhamaadkiisii ilaa intaa waan wada soconay xiriirkeygii. maxay heetoy xiriirkeyga xiriir aad iyo aad kalsooni badan bay ahaa bay tiri. aad baan isku jeclaan isku kalsoonaan isugu hanweyneyn isugu maxay tahay markasta heelanayn qofna qofka kale kamuu shaki jirin. aniguna sidoo kale aad baan ugu kalsoonaa bay tiri oo jeclaa qof maaragtay ilaa xad aan ku kalsoonay buu ahaa. farxad badan baan ka heli jiray xagga noloshayda bay tiri. in badan wuu saaciday aad iyo aad buu markasta i garab taagnaa. maxay heetoy inaan isku nimaadana waqtiga ayaa noo diiday isku maanaan imaan yacni tii ilaahayna may noqon yacni qof kastana maaragtay bay leedahay nanti waqtiga ilaahay yaa maaragtay u qoro ayay dadku is arkayaan ismaana ark xilligeedii may noqonin. hase yeeshee bay tiri waxa dhacay bay tiri maxay heetoy inankii waqtigaa bilaa shaqo ayuu ahaa. shaqooyin u haystay laakiin shaqooyin rasmi oo weyn oo wax la taabta ah muu haysanin. waxay tiri waxa dhacay shaqooyinkii markaas uu haystay kumay ahayn kuwa munaasiba. shaqo fiican buu helay markaas sanadkii 18 bilowgiisii shaqadii fiicneed uu ka shaqaynayay muddo ay waday sanadka dhammaadkiisa ku beegnayd oo sanadkaas markuu dhammaado ayaan doonanay bay tiri aan jacaylkayga ka midho dhalno isku soo dhawaano maxay tahay aan reer noqono dad markaas mildiga oo ku tirsan aan noqono. marka waxay tiri walaasheena ilaahay barakeeyo wiilkii bay tiri waxaanan ka firinin baan arkay bay tiri. waxaan arkay bay tiri wiilkii anagoo ballansan noloshayda wax kastaan qorshaysanay oo meel dhiganay oo maaragtay waqtigii aan ka ballansanay muddadeeda la taagan yahay oo bilo yar ka hadheen. waxaan doonayaa walaalayaal inaan sheekadeedii soo dhameeyo waan idinku dheereeyay 4 minute bay maraysaa durba. marka waxay tiri ay sheekadii halkaa marayso aanu ballanay oo magaranaysa halkan isugu nimaadna kuwa qalgalno arooskii noloshii farxaddii faamiligeyga xitaa aanu sheegay waalidkeyga ogyihiin asxaabta ogyihiin dadkii wada ogyihiin inaan isku xidhannahay iskuursanoo imaanayo oo bulshada dadka dhammaan ay la socdaan ayaa waxa dhacay bay tiri joogi kale yaa waxa soo socda yaa ayaa waxaan kugu wuri
yaa waa la arki doonaa ma fahantiin. Marka waxay tiri waxa soo socda bay tiri wuxuu soo waday waxay tiri webiga weyn wuxuu soo wadaa weyn. Marka waxay tiri waxa dhacay bay tiri wiilkii aan sidii ku ballansanayn in mar qura telefonkiisii uu qaban waayo, ina soo qaraaci waayo, khadkiina online uu ka baxay. Si maaragtay waxay tiri kedisa ayaa waxay tiri gabadh in adeertii oo markaas ku kaayoogeyd baxday soo qaracday muddo kadib dhowr cisho usbuuc ka bacdi. Markay soo qaracnay bay ugu tiri naaya hebla iska horseeta fiican tusaleyn ka bacdi waxay ugu tiri oo ninantii oo sheekadeeda la socotay salaan ka bacdin waxay ugu tiri bay tiri oo mid ka waraysa hebel inuu guursaday. Hebel inuu guursaday haa waxay tiri afkiiba joogta gabay naxdin bay tiri wadnii bay gariiray cagihiin ku taagnaa bay tiri inaan ku taagnaayeen kala garan maayo. Waxay tiri nolosheedana buu isbedeshay nooc kale ayaa noqday. Waxbaad idin ku daalno waxay tiri nantii waxba maan odhanin. Waxay tiri waxba maan odhanin ee waxaan sameeyay bay tiri waxaan iska dhigay bay tiri qof maaragtay og ama ay kala hadheen oo kale oo ma garanaysa dee waxaan baliyeen isu caadiya iyadoo daadana waxay tiri naxdintii liiga dareemayo ayun baan guuraha waan ogaa runtaada walaalo waana maqlay si tiri oo haye ka waran xiriirkiinii halkuu ku dambeeyay horta bay igu soo tirsan kuwa anaga kala hadhnayo waana maqal walaalo wiigaa soo horreeyay badee maxay tahay warkani say tiraayo wadee gabadh caynkaas soo saasa uu guursadayo say tiraayo runtaada ma garatay hooshun baan ugu dhagan bay tiri naxdinta maalintii qaaday bay tiri alaalanka waan la shoogsanahay saxaab. Marka waxay tiri inantii gabadha way iga baxday meelan joogan kala garan waayay muddo waxay tiri isbuuca ayaan waxaan ku suganahay baan aan garan waayay bay tiri dadkii la yaabeen gurigeeda joogay oo ma jecel waayay khadkii telefonkii ku hadli kar waayay isagii telefoon facebookiisii aan markasta ixtiraan eegi jiray fariimihiisii noloshiisii aan isku maaweelin jiray wixiiba waxay tiri aan dhaha saar kar waayay bay tiri waxaan sameeyay bay tiri si ma garanaysaa aanu ilaabo markii 7 cisho ay dhamaatay aan iska ladnaaday bay tiri wixii daan sidii maadaama qofkii waxaa sameeyay dee dhan wari hasku mashquulo naftada hadilini iska dhaaf waxa ku qornaaba heetaniye waxaad waxaan sameeyay facebookiisii markaas wax tiri blog baan iska saaray lambarkiisii whatsappkiisii meel alla meel uu igala xidhiidhi jiray social media kamid waxay tiri blog baan iska saaray nolosheedan hore u sii maray nolol kale ayaan iska bilowday asxaabta qaaliga raalahaada way igu dheeraadeen midharadii marka sheekada ayaa u dheeraad inanta iga sheekisay marka ma aqrinayo laakiin waan soo akhriyay markaas saas anu baydiyay maxay tidii sheekada marka waxay tiri inantii maxay toolay sanadka dhamaadkiisii ku habay tiri 2018 waxa loo soo gudbay bay tiri bishii soo galay tiri sanadkii cusbaan 2019 sanadkii wii bishay markuu bishay waxay tiri wiilkiisii dumaan arag waxa dhacay bay tiri wiilkii dee inuu guursado waan maqla nolosheedii qalbigiiba waan ka saaray waxay tiri sanad ka bacdi ayuu la soo xiriiray sanad ka bacdi markii la soo hadlay soo raadiyay la soo xiriiray maxay heetay cala badan kadib iyo wajhi walaaltinimo iyo maxay heetay telefonkeygii markuu soo helay dambe kii hore xitaa iguma ogeyn kii dambe uu soo helay uu soo qaatay waxay tiri maxay heetay oo iska cafiyay bay tiri anigu waxna kuma qabaadhay sidii hore dababihiiba waan ka bogsaday waxaas waxba ma qabo way tiri soo qofan shalay dee aan jeclaa bay tiri haddana qalbiga inkastoo iga jabiyo noloshayda disay noqoteen ogaa haddana bay tiri ay waadkeed haddana way tiri isagoon iska cafiyay waana iga dhabay tiri wax sidii ban marka waxay leedahay warkiyaan idinku dheerayne maxay tii inantu waxay leedahay wiilka igu soo noqday afis buu iga dalbaday afis ka bacdiyo wada sheekaysi dheer kadib maalinta ka dambeysa soo qaraacayay sidiisii hore isugu dhuujoona maaha bay tiri waa dee qof kale oo dee ma garanaysaa nolol cusub galay hase yeeshee haddana ka qoomameynaya bay tiri anigana igula waan kugu soo laabtay iminka doonayna xidhiidh
jacayl imika maaragtay inaan dub u bilowno wixii horena laga yimaado. Haddii wuxuu yidhi maxay ahaatay aan dub xidhiidhkiina aan usoo celino buu leeyahay wax kastaba waan kaa maarayaa xaalna waan bixinayaa waana ku soo duunay sida ugu sharafta badan waan ku guursanayaa buu taagan yahay. Gabadha horena daaqada ayaan ka bixinayaa buu taagan yahay. Wuxuu taagan yahay yacni adiga ayaa ma garanaysaa qof aan kuu qiimeyn karo ama ku agdhigi kara ma jiro. Calaf baa dhacay gabadhan anigu ma jecli calaf baa isku geeyay anigu adiga ayaan ku jeclaa adiga ayaan ku rabaa noloshayduna adiga baa kafeyn kara. Wuxuuna taagan yahay wuu leeyahay haddii aan ku hantiyo aan ku guursado sanadkan iminka aynu galnay dhexdiisa inaan gabadhan furaayo saas ayuu ka wadaa daaqada ayaan ka bixinaya walaalayga saa u fahanteynba. Markaas maxaa talaa bay leedahay maxaan sameeyaa bay leedahay maxaa talaada siinaysaan maxaa yeelaa anigu bay tiri qalbigeyga ka saara wax jacayl maanta uma qabo qalbigeygana bay tiri sidii uu shalayto uga tagay ayuunbuu uga dhintay. Waxay tiri waxaan u qabo malaha laakiin isagii ma garana wax ka qaldan bay leedahay. Markaa ila soo taliya walaalayga qaaliga insha Allah idinku dheeriga raalli ahaada. Assalaamu calaykum bye.